أن هذا الوجود النورو ما دام أشكتي أن سيدا حن دلنيرة لو قيب جري على هذا أي قيب والنقدان وحبل هذا وحن فيريننا سيدا وناسنا بدنك وناسن دلنيرة هو قيب نقدان نبضة دلنيرة وحي قيب كيهين هرمرك المستقبل كبالشيء جارت سيدا كلا وحي كالن موقت كليهين حلنت خلافاتك بالشدة دحنا كجرا تصالح أهان كذا نبضة أهان دلنيرة waxay muhiim u yihiin adkeynta dimuqraadiyadda dawlad wanaagga iyo sidoo kale xalinta dhibaatooyinka heer bulsho iyo heer qaran sadilo waa sida sheegtay qaybtan dhalinyarada iyo maaragtay ka qayb qaadashadeeda nabadda dabcan waxaan ka soo hadalnay colaadaha iyo dhalinyaradu qaabka ay u saameeyaan qaabka ay ugu lug yeeshaan iyo waxyaabaha fududeeya qofka environmentigaas ku koray maaragtay xilli colaadeed dadkiisii ku waayay waxbarasho wanaagsan aan helin shaqo wanaagsan aan helin laga yaabo bulshadiisii inay dabaqado kala duwan inay ku nooshahay oo la yiraahdo reebel waxaas ma heli karaan hebelna bulsho heblana waxaas ma heli karto inuu bulshada mar walba hoos loo dhigo inuu ka soo jeedo laga yaabo qofka noocaas ayaa wuxuu noqon karaa mararka qaarkood qof peace builder ah waxay ku imaanaysaa inuu qofkaasi yahay marka horeba qof proactive ah oo bulshadu waxa ay ku fakarayso groundka guud bulshada waxa dhex yaala wax ka weyn inuu ku fakarayo marka hore qofkii culaysaadkaas ay haysteen ayaa wuxuu u fakarayaa intii uu asagu ka mid noqon lahaa ku milmi lahaa wixii jiray wuxuu u fakarayaa inuu noqdo community changer ama qof bulshadiisii una bedela sida wanaagsan ee dunida kale maaragtay ay ku nooshahay haddaan tusaale u soo qaadano kaalinta dhalinyaradu ay ku leeyihiin nabadda waxaan tusaale yar u soo sheegi doonaa ilaa iyo 3 urur oo heer caalami ah dunida ka jira oo ka shaqeeya nabadda ayna aasaasan dhalinyaro iyo qaar kamid ah dhalinyaro ruuxeeda shaqadii ka qayb qaatay waxaan ku bilaabaa waxaa jira urur la yiraahdo outpower oo ka dhisnaa dalka Serbia lana aasaasay 1998 ay aasaaseen dhalinyaro Serbian ah ayna xilligaas uga soo horjeedeen maamulka adag ee dimuqraadiyadda aan lahayn ee kala talisnimada ah oo xilligaas dalkaasi ku hayay ninka la yiraahdo Milosevic waxay go'aansadeen in banaanbaxyo nabdoon oo aan wax rabshada wadan ay ku hogaamiyaan ummadooda si loo gaaro dimuqraadiyad muddo dheer oo ay wadeen banaanbaxyadaas nabdoon waxa u suurta gashay ugu dambeyntii inay helaan inay iska qaadaan kala taliskii ayna helaan dawlad dimuqraadi ah oo ay ku nagaadaan waxaan sidoo kale tusaale idinku soo qaadanayaa urur ka dhisan dalka Argentina oo la yiraahdo Rosarios Youth Center wuxuu u ololeeyaa waxa la yiraahdo empowerment-ga youth empowerment-ga in awoodsiinta dhalinyarada qayb laga geliyo arrimaha bulshada sida maamul wanaagga iyo kaleeto horka shaqeynta dimuqraadiyadda xalinta khilaafaadiyada nabadda inay ka shaqeeyaan ururkaas waxaa la aasaasay 1998 kaalintiisuna waxay tahay inuu u ololeeyo awoodsiinta dhalinyarada markii loo fiiriyo dhanka nabadda sidoo kale waxaa jira urur sidoo kale taasina ka dhisnaa jira dalka Serbia Sierra Leone andee oo la aasaasay sanadkii 1990 ururkaas wuxuu u ololeeyaa oo shaqadiisu ay tahay bulshada inuu ku wacyigeliyo nabadda sidoo kale in la abuuro waxbarasho nabadeed waxa la yiraahdo peace education in la sameeyo wuxuu dadka ku wacyigeliyaa oo bulshada u sheegaa isdhexgalka bulshada ee sportska iska warqabka bulshada iyo sidoo kale tababarada bulshada ee la xiriira nolosha wanaagsan ee bulshada ku noolaan karto hadaan tusaale ku soo qaato qaar kamid ah dadka ka qayb qaatay shaqadaas ayda waxaa jirta gabar la yiraahdo Anna Barnatin oo Germany ah gabadhaas waxay dhalatay sanadkii 1868 ilaa laga soo gaaray 1947 ayay nooleed gabadhan waxay u ololeey jirtay wax la yiraahdo world peace waxaa la sheegaa sanad xilliyadii horaantii dagaalka dunida ilaa iyo 6 milyan oo dhalinyaro saxiixayaal ah ay saxiix ka heshay kuwaas oo u ololeynaya in ay ka hortagaan dhicitaanka dagaalka ee dunida muhiimaduna waxay ahayd in la helo nabad caalamka oo dhan wada gaartay dunida ka jirta